laanta afka Soomaaliga ee BBC waxay idin soo gudbinaysaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka oo aad toos ugala socon doontaan Facebook. Ra'yigaaga kaga soo dhiiba Facebook lana wadaag asxaabtaada. BBC horyaalka wararka adduunka. laanta afka Soomaaliga ee BBC waxay idin soo gudbinaysaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka oo aad toos ugala socon doontaan Facebook. Ra'yigaaga kaga soo dhiiba Facebook lana wadaag asxaabtaada. BBC horyaalka wararka adduunka. halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com waa 9kii fiidnimo Afrikada Bari kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa habeen talaada soo galayso 21 bisha May sanadka 2018 waxaa sii kordhaya khasaarooyinka ka dhashay roobabka xooga badan ee ka da'aya deegaanada Soomaalida. Muqdisho malaayiin dollar ayaa lagu qiyaasay inta nool gurmad ay codsanayaan. dhibaatada hadda lagu dhacday ilaahay ayaa mahadda iskala mahadnaqaynaa. ilaahay naga badbaadi karo laakiin dawladdeena garabka la rabno. Maraykanku waxa uu ku hanjabayaa in cunaqabatayntii ugu adkayd taariikhda ay ku soo rogi doonaan waddanka Iiraan. ciidamada dawladda Suuriya waxaa la sheegay inay la wareegeen intii ugu dambaysay gacanta kooxda sheegata dawladda Islaamka ee agagaaraha magaalada Dimashq. arrimahaas iyo qodobo kale oo barnaamijka ciyaaruhu ka mid yahay ayaad ku maqal doontaan idaacaddan. maxamed maxamuud cabdi ayaa soo saaray barnaamijka. waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo stuudiyaheena Nairobi. Axmed Nagaashi. mahadsanid Sami. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Washington ku soo rogi doonto Iiraan xubno qabatayno aan hore loo arag. hadalkiisani wuxuu daba socday go'aankii madaxweyne Trump kaga baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan. waxa uu sheegay in 12 shardi oo Maraykanku uu ka doonayo Iiraan uu sheegi doono. waxaanu Pompeo yidhi Maraykanku wuxuu Tehraan saari doonaa cadaadis taariikhi ah si ay uga hadho himiladeeda hubka nukliyeerka iyo gantaalaha baalistiga. wuxuu sheegay in aan Iiraan weligeed loo ogolaan doonin si buuxda inay bariga dhexe saameyn ugu yeelato. waxaanu ku baaqay in la helo taageero ballaadhan oo ka timaada dalalka waaweyn ee Maraykanka xulafada yihiin. waxaanu intaa ku daray Pompeo in Tehraan ay haatan haysato fursad ay ku kala doorato inay dhaqaalaheeda liidata dabaqabatayso iyo inay sii wado dhaqaalaha ay ku bixinayso gardarrada. ciidanka Suuriya ayaa sheegay inuu haatan si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Dimashq iyo dhulka ku hareeraysan oo tan iyo sanadkii 2012 dagaal ka socdeen. ciidanku waxa uu guusha uu sheegtay shaaciyay markii uu qabsaday aaggii ugu dambeeyay ee go'doonsanaa ee gacanta ugu jiray kooxda la baxday dowladda Islaamka oo ku yaala koonfurta magaala madaxda. xogag taageersan dowladda ayaa galay Yarmouk oo mar ahaan jirtay xero qaxooti oo ay ku jiraan qiyaastii 150,000 oo qaxooti Falastiiniyiin ah iyo degmo kale oo ay jaar yihiin. markii horreysay ayaa basas halkaa ka qaadeen dagaalyahanadii u dambeeyay ee kooxda Daacish oo u baxay dhanka bari ee Suuriya. arrintaas oo ahayd heshiis daadgurayn ah oo hore loogu heshiiyey. Maraykanka ayaa ku goodiyey inuu cunaqabatayn dheeraad ah ku soo rogi doono Venezuela oo madaxweyne Nicolas Maduro ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in codbixintu ahayd mid aan xor iyo xalaaltoon ahayn. waxa uu yidhi Maraykanku gacmaha ka laaban maayo iyadoo Venezuela ay dumayso iyo dhibaatada dadkeeda haysata ee sii socota. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo degdeg oo gacan ka geysanaysa soo dabaalidda dimuqraadiyadda. 14 dal oo kale oo ku yaala qaaradaha Amerika ayaa iyaguna danjirayaashoodii u yeedhay taasoo ay kaga biyadiidsan yihiin natiijada doorashada.
laakiin dalalka deynta ugu badan siiya venezuela iyo kuwa ay xulafada yihiin sida ruushka iyo shiinaha ayaa taageeray madaxweyne putinna waabuu u hambalyeeyey maduuro guusha uu doorashada ka gaadhay ayaanu ugu hambalyeeyey. hogaamiyaha xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn talyaaniga ee 5 star movement ayaa sheegay inuu doonayo inuu profesor jaamacad ka dhiga sharciga oo la yidhaahdo Giuseppe Conte uu noqdo ra'iisul wasaaraha dowladda wadaaga oo la filayo inay hoggaanka qabato dabayaaqada toddobaadkan. isagoo la hadlayay warfidiyeenka kadib markii uu ka soo baxay kulan uu la lahaa madaxweynaha talyaaniga ayaa waxa uu sheegay inuu ninka uu carabka ku dhuftay uu yahay nin ay isku waafaqsan yihiin isaga iyo xisbiga kale ay xulafada yihiin ee midigta fog. madaxweynaha ayaa sidoo kale la kulmay madaxa xisbiga midigta fog ka hor inta aan u shaacinin inuu ogol yahay in labada xisbi xukuumadda soo dhisaan iyo in kale. labada xisbiba waxay ballan qaadeen dakhli go'an oo la siiyo qoysaska saboolka iyo dadka aan shaqaynin iyo sidoo kale in cashuurta aad loo dhimo. ugu dambayna maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa xukun adag oo xabsi daa'in ah ku riday 104 askari oo hore uga tirsanaan jiray militariga dalkaas, kuwaasoo lagu eedeeyey inay afgambigii dhicisoobay ee lala maaganaa madaxweyne Erdogan sanadkii 2016 qayb ka ahaayeen. xukunka adag ee madaxaha ku furtaahi waa uu ka culus yahay ka caadiga sababtoo ah waxaa badan muddada ugu yar ee marka uu qofkaasi xidhnaado kadib saamaxaad uu dalban karo. taliyihii hore ciidanka cirka iyo jenaraal kale ayaa ka mid ah dadka xukunka lagu riday. 21 eedaysane oo kale ayaa iyagana lagu xukumay 20 sannadood oo xadhiga, 30 kalena ayaa iyaga lagu riday xukunno kuwa ka fudud. markii afgambigii dhicisoobay dhacay kadib ayaa waxaa la qaaday howlgal ballaadhan oo lagu xidhxidhayay dadka dowladda u shaqeeya, qaarkoodna shaqooyinkii ayaa laga eriyey. warkii dunida oo idinka imanaya stuudiyaha BBC da Nairobi ayaa intaa ku eg dhegaystayaal aan idinku celiyo Axmed Cabdinuur ee London. axmed nagaashi aad ayuu u mahadsan yahay. u diyaar garooba qaybaheena kale. sida aad warka ku maqlayseen, ciidamada dowladda Suuriya waxay ku dhawaaqeen inay si buuxda ula wareegeen dhammaan deegaanada ku hareeraysan caasimadda Dimashq kadib markii ay dib uga qabsadeen kooxda sheegataha dowladda Islaamka intii yarayd ee gacantooda ku hartay. wariyahayaga arrimaha carabta Sebastian Ashar ayaa ka warramaya. waxaa soo jeedinaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. in ka badan 7 sano ayaa ka soo wareegtay dagaalka ka dhacaya waddanka Suuriya ee madaxweyne Bashaar al-Asad imika aad moodo aakhirkii inuu gacanta ku dhigay dhammaan dhulka ku xeeran magaalada Dimashq ee caasimadda. waa goobtii ugu dambeysay ee dhinaca koonfurta ee dagaalyahanada ISIS ay haysteen. Faraku-tiris ayaa ku haray dhul markii hore xoog ay ku xukumayeen. saaka ayaa intii u dambeysay la sheegay basas inay ka raacday oo ay u kaceen dhinaca bariga. guusha la gaadhay waxyaabihii ka soo gaadhay Suuriya meel walba way ka muuqdaan, waana sida dhimashada, burburka iyo dadka guryo beelay ama ka qaxay meesha. dadka degan Dimashq ayaad moodaa iminka inay nafiseen, laakiin dhinaca koonfurta iyo waqooyiga magaalada Idlib 100,000 oo qof ayaa weli jooga meelo kooxaha fallaagada ay haystaan, waxaana ka baqanayaan ciidamada dowladda raacsan ee guulaystay gacantana ka helaya Ruushka iyo Iiraan in meesha ay abaarayaan ee xigtaa ay tooda tahay. mahadsan Cabdirasaaq. waxaa sii kordhaya khasaarooyinka ka dhashay roobabka xoogga leh ee ka da'aya deegaanada Soomaalida. magaalada Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda injineer Yariisow waxa uu sheegay in marka laga yimaado 6 qof oo halkaas ku dhintay iyo dad badan oo ku barakacay ay roobabkaasi geysteen khasaare dhinaca hantida ah oo gaaraya 35 milyan oo dollar. dhinaca Somaliland waxaa la sheegay inay korortay tirada dhimashada roobabku sababeen. wararkii ugu dambeeyey waxaa markii horeysay iga warramay wariyaha BBC Axmed Saciid Cige. axmed cabdinuur waad mahadsan tahay. wararka ugu dambeeyey waxay sheegayaan in haatan ay kordheen dadka ku dhintay daadadkaasi iyo dabaylaha duufaanada watay ee ka dhacay xeebaha galbeedka ee Somaliland. afayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa war uu soo saaray iyadoo shir istaba joog ay jireen ay dhacayeen ilaa iyo 40 saacadood ee u dambeeyay. waxa uu sheegay in 25 ruux dhimashadu ay marayso oo 18 gobolka Awdal ay tahay 6na Saylac gobolka Selel iyo hal Saaxila. wuxuu sheegay in 12 qof dhaawac yihiin oo Awdal iyo Saylac ay tahay isla mar ahaantaasina 27 qof la laayahay. wuxuu sheegay in 80% xoolihii xeebaha 3 gobol ee Awdal, Selel
salal iyo saaxil ee dhinaca xeebta ku noolaa ay dhinteen oo roobabkaasi dabaylaha wataa ay dileen beero fara badanina ay ku baabeen. waxaa kaloo jirta in ay kala xidhxidhan yihiin oo xeebaha markaad eegto dhulka xeebaha meelaha qaarkood ay go'doonsan yihiin oo xataa isgaarsiintii ay go-an tahay sida Luqaya iyo Bullaxaar oo kale iyo degmooyin kale oo ka tirsan deegaanadaasi ka tirsan. sidaa daraadeed waxa ay kaliftay in madaxweyne xigeenka Somaliland iyo wafdiga hogaaminaya ay tagaan Djibouti saaka dabadeetana diyaarad helicopter ay kasoo qaateen oo Djibouti ay leedahay oo mas'uuliyiin ka tirsan Djibouti ay ku weeriyaan dabadeetana ay meelahaasi haatan ay marayaan oo ay ku degayaan oo dabadeetana waxay kala kulmaan haatan aynu sugayno. waxaa kaloo jirta in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi isaguna uu baaq u diray dhammaanba bulshada caalamka iyo hay'adaha iyo qaramada midoobay iyo shacbiga gaar ahaan ganacsatada oo uu ugu baaqay in ay dadkaasi musiibada ay ku habsatay ay ka qayb qaataan sidii loo gargaari lahaa. marka inahaas ayaa jira waxaana soo baxaya in hay'adaha caalamiga gaar ahaan qaramada midoobay iyo kuwa kale samafalkubaha in haatan ay isku dayayaan in ay gaaraan meelahaasi dhibaatooyinku ay dhaceen. waxaana baki gaadhay sida ii sheegeen in dad halkaasi jooga in bisha cas iyo hay'ado kale oo markaasi inkastoo gargaar aanay gaarsiin oo jidadku ay xun yihiin oo jidadka sidii gawaadhida waaweyn ee sida gargaarku ay marayaan ay u adag tahay. marka xaaladdu intaasi ayay tahay Axmed. jawigu waa sidee hadda roobkii iyo dabaylihii iyo wixii ma istaageen ama hoos ma u dhaceen mase weli waa garaacayaan? Axmedow way imaka way ladan tahay oo ma jiraan imaka roobab waaweyn oo da'aya shuuxwa uu jiraa laakiin wadooyinka oo dhan baa go'ay inkastoo daruuro ay jiraan oo magaaladan Hargeysaba aad ka garan karto. laakiin haatan sidii hore aad iyo aad bay u dhaantahay qorrax baa jirtay maanta meelaha qaarkood markii aan la xidhiidhay inkastoo telefoonada iyo ay go'ayno imaka uu la soo celcelinayo oo internetku xataa uu Hargeysadan u ka laakiin meelaha qaarkood la soo celiyay haatan. marka xaaladdu imaka ayuubay kasoo kabashay tahay laakiin dhibaato weyn baa dhacday sida muuqata. waxaana jira dad badan oo xataa la la'yahay ilaa 720 qof ayay sheegayaan awdal iyo selel oo kale in la la'yahay imaka oo dadkoodii ay baadidayaan oo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen aan la garanay ku daaradkaasi qaadeen iyo in kale. wariyaha BBC Axmed Saciid Cige. laanta af Soomaaliga ee BBC-du waxay maanta bilowday tartan suugaaneedka gabdhaha dhalinyarada ee Soomaaliyeed kaas oo lagu dhiirigelinayo inay soo bandhigaan hibada Ilaahay siiyey. tartanka waxaa la bilaabay sanadkii hore waxaana xilligaas ku guulaysatay Deeqa Nuux Yuunis oo ku nool Hargeysa. warbixin tartankan ku saabsan waxaa soo jeedinaya Axmed Nagaashi. abaalmarintan waa tii ugu horreysay ee nooceeda ay u tartamaan hablaha Soomaalidu ayaa markii la bilaabay sanadkii hore waxay soo jiidatay dhalinyaro badan. in ka badan 100 gabdhood ayaa sanadkii hore u tartamay abaalmarintan. gabdhaha ku guulaystay kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaad ayaa lagu shaaciyey xaflad gaar oo Hargeysa ka dhacday, taasoo lagu maamuusayay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Deeqa Nuux Yuunis oo sanadkii hore gashay kaalinta koowaad ayaa sheegtay in wixii markaa ka dambeeyay ay magac ku dhex yeelatay bulshada. waxay ii samaysay dhiirigelin fara badan. waxay ii samaysay in aan hadafkayga iyo yoolka aan ka leeyahay suugaantayda labadaba aan ku dhiirado. asxaab badan iyo dad badan iyo ummad badan oo Soomaali ah oo meelo kala duwan kala joogta oo iskaaya baray. yacni waa farxad in la sii wado oo marba cid la soo saaro. haddii markii hore yacni 100 hablood ay fariintooda gudbiyeen ay isku dayeen in ay ku tartamaan hibadooda in ay markana ay 100 kale ay ku tartamaan. taftiraha laanta af Soomaaliga ee BBC-da Cabdilaahi Cabdi ayaa sheegay in sii wadida abaalmarintani ay muhiim u tahay dhageystayaasha idaacadda isla markaana ay fursad siinayso gabdhaha hal-abuurka ah ee jiilka cusub. waan ku faraxsanahay inaan halkeedii ka sii wadno abaalmarintani taas oo aan bilownay sanadkii hore. waxaana xilligaasi la soo gudbiyey wax ka badan 100 gabay. waxaan hubnaa in dumarka Soomaaliyeed ay dowr lixaad leh ku leeyihiin ciyaaro dhaqameedka iyo weliba adeegsiga luqadda. abaalmarintani waxaan uga dan leenahay inaan soo saarna hal abuurka dumarka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inagoo siinayna fursad ay ku soo bandhigaan hiibooyinkooda iyo hal abuurkooda. Rachel Akidi oo ah madaxa laamaha bariga Afrika ayaa sheegtay in abaalmarintani ay muujinayso sida laanta af Soomaaliga ee BBC-da ay uga go'an tahay soo jiidashada dhageystayaasha dumarka ah.
The BBC is committed to reaching out to female audiences around the world. BBC waxaa ka go'an inay gaarto dhagaystayaal badan oo dumar ah. Abaalmarintan lagu doonayo gabdhaha cusub ee hibada u leh suugaanta ayaa hormuud ka ah dadaalka BBC News Somali ee arrintan ku aadan. Is at the forefront of these efforts. laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa ah tan loogu dhagaysiga badan yahay Soomaaliya iyo deegaanada kale ee Soomaaliga lagaga hadlo. Waxaana wararka ay baahisay idaacaddani toddobaadkii dhagaysta 4 milyan oo qof. bishii Maarch ayaa laanta af Soomaaliga ee BBC-du waxay baahisay barnaamij ku saabsan toddobaadka dumarka. Abaalmarintanina waa barnaamij kale oo lagula xidhiidhayo gabdhaha dhalinyarada ah ee Soomaalida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku ay cunaqabatayntii ugu adkayd taariikhda ku soo rogayaan dalka Iiraan, taas oo la xiriirta ka bixitaankii madaxweyne Trump ee heshiiskii nukliyeerka Iiraan. khudbad siyaasadeed muhiim ah oo uu jeediyey Mr. Pompeo waxa uu ku sheegay in Mareykanku ay xaqiijin doonaan in dowladda Iiraan aanay weligeed cagta saarin waddadii ay ku gaari lahayd hub nukliyeer ah. waxaa kaloo uu dejiyey 12 waxyaabood oo Mareykanku ay ka doonayaan hoggaanka Iiraan inay ka soo baxaan, oo ay ku jirto in ciidamadooda oo dhan ay kala baxaan dalka Suuriya, ayna joojiyaan taageerada mucaaradka ka horjeeda dowladda Yemen. waxa uu dowladaha adduunka ugu baaqay inay taageeraan tallaabooyinka Mareykanku qaadayo. The Iranian regime should know that this is just the beginning. xukuumadda Iiraan waa in ay ogaataa inay tani tahay bilow. xanuunka cunaqabatayntan wuxuu noqon doonaa mid aad u daran haddii aanay joojin ku sii socoshada qorshaheeda aan la aqbali karina ee aan natiijada lahayn, kaasi oo ay ka dooratay in ay ku soo biirto ummadaha adduunka. kuwaasi waxay ku dambayn doonaan cunaqabatayntii ugu adkayd taariikhda marka aynu dhammaystirno. xukuumaddaasi waxay dagaal ka waday bariga dhexe muddo sanooyin ah. kadib marka cunaqabataynteena ay meelmar noqoto, waxay waxyeello weyn u geysan doontaa hannaanka dhaqaalaheeda. ciidanka sirdoonka Ruushka ayaa sheegay inay ogaadeen in koox xag jira oo ka tirsan dadka Tataaris ee deegaanka Crimea ay sameeyeen dad weerara dadka Tataaris ee iyagu taageeray in Ruushku deegaankaas waddankiisa ku darsado 4 sano ka hor. sirdoonka FSB waxay ku doodayaan in kooxdaas uu hogaaminayay nin kaaliye u ah Mustafa Demilev oo ah hogaamiye diineed dadka Crimea ee Tataaris, iyagoo taageero ka helaya ciidanka sirdoonka dalka Ukraine. Cabdiqaadir Yuusuf ayaa soo jeedinaya. hay-adda ammaanka Ruushka ee FSB ayaa ku eedeysay kooxahaasi inay yihiin xag jir, ayna ka mid ahayeen rag feerka ku tartama oo la qabtay bishii hore. dembiyadaasi ayaa dalka Ruushka waxa uu qofka lagu helo ku mutaysan karaa ilaa 10 sano oo xarig ah. bishii Abriil, laamaha ammaanka ee Ruushka ayaa qabtay Alexander Stashenko oo ay ku eedeeyeen inuu Crimea u tagay xaalad abuur. qayb ka mid ah qowmiyadda Tatar ee Crimea ayaa diidan qaabka xoogga ah ee uu Ruushka ku qabsaday dhulkooda. dowladda Ukraine ayaana weli ka hadlin eedayntaasi. hogaamiyihii Ruushka ee Stalin ayaa Taataariyiinta oo ah qowmiyad muslim ah si ballaaran uga tarxiilay Crimea, waxa uuna u diray dalka Kazakhstan dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa loo oggolaaday inay dib u soo laabtaan horaantii 90-meeyadii. waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf cali ayuu ahaa kaasi. halkaas aad nagala socotaana waa BBC London. tartankaas xagga suugaanta ee gabdhaha dhallinyarada ahna waxaad ka soo qaybgeli kartaan. waa uu bilowday website-ka BBC haddii aad gashaan waxaad ku arkaysaan qaabka tartankaasi looga soo qaybgeli karo. halkani waa London. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bogga internetka ee laanta af Soomaaliga, mar kasta iyo meel kasta.
waa tahay qodobada wararka caalamka ugu waaweynna waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo sheegay in khasaaraha dhinaca hantida ee ka dhashay roobabka xoogga leh ee magaalada ka da-ayay 24 saac ee lasoo dhaafay ay geysteen ilaa hanti gaaraysa 35 milyan oo dollar ay ku burburtay. Somalilandna waxaa la sheegay in ay korortay tirada dadka ku dhintay roobabkaasi gaar ahaana gobolka Awdal iyo weliba Saaxil halkaas oo haatan tiradu rasmi ahaan ay tahay 25 qof. Ciidamada dowladda Suuriya waxa ay ku dhawaaqeen in ay la wareegeen dhammaan agagaaraha magaalada caasimadda ah ee Dimashq goobihii ay ka haysteen ee ku haray gacanta kooxda sheegata dowladda Islaamka. waa tahay markana waa barnaamijkii ciyaaraha oo caawa oo kale aan idiin soo gudbin jirnay. kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo maanta aanu ku bilaabayno tartan dhinaca maaratonka oo ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain. Tartanka orodka dheer ee maaratonka ee 10 kiiloomitir ayaa sabtidii waxa lagu qabtay magaalada Manchester ee ku taala waqooyiga dalka Britain. kumanaan orodyahan ayaa ka soo qayb galay. dadka halkaas ka soo qayb galana waxa ka mid ahaa Mo Farah oo imika u leexday dhinaca maaratonka. Mo Farah markii hore waxa uu ka soo wareegay 5,000 iyo 10,000 oo uu caan ku noqday bilado fara badan oo dahabana uu ku qaatay. guushu haddaba waxa ay raacday Sir Mo Farah oo ka badiyay Moses Kapsiro oo u dhashay dalka Kenya. haddaynu eegno dhinaca haweenka, Turnish Dibaba oo reer Ethiopia ayaa iyaduna ku guulaysatay. warkan waxa inoo haya Bidaan Xaaji Daahir. orodyahanka haysta koobka adduunka ee olombiga iyo ka caalamkaba ah ee 10,000 mitir Maxamed Faarax ayaa sheegay inuu dareemay daal badan kadib markii uu ku guulaystay orodka dheer ee Manchester ee 10 kiiloomitir. Mo Farah oo maradoonkii London ee bishii hore kaalinta saddexaad ka galay ayaa waxa uu markiiba jiiday oo u dhaafay Moses Kispero markii 100 mitir ay ka harsanayd tartankaasi, waxaana uu ku qaaday 28 minute iyo 27 second. Abdelkurai oo Kenya ah ayaa isaguna saddexda noqday 25 second ayaana uu ka dambeeyay Mo Farah. gabadha Etoobiyaanka ah ee Turnish Dibaba ayaa iyadu noqotay markii saddexaad gabadhii ku guulaysata tartankaasi iyadoo cagta marisay ee gabadha u dhalatay dalka Kenya ee Joselina Jepkosiga. dhanka ragga iyagu ku orda gaadhiga curyaamiinta waxa qaaday dalka Britain ninka u tartamaya leedo David Weir, waxaana uu garaacay John Boy Smith and Simon Lawson, waxaana uu ku badiyay 21 mirir iyo 28 second. xagga haweenka iyaguna ku tartamaya gaadhiga curyaamiinta Britain Les McNetenan waxa ay ku qaaday 34 mirir iyo 20 second iyadoo ka horeysay Heather Graham and Lucy Kewart. Maxamed Faarax ayaa markii ugu horeysay tartankan ka qayb galay intan iyo 2007 waxaana uu ka qayb galay mirir loo aamusnaa dadkii ku dhintay Manchester ee 22 ahaa kuwaas oo sanadkii hore naftooda ku waayay meesha la yiraahdo Manchester Arena kadib markii halkaasi uu nin isku qarxiyay. haddaba intii uu socday orodkaasi dheer ayaa 35 jirkan Maxamed Faarax waxa uu muuqday nin runtii ku degan oo ku faraxsan in hawadu ay diirraneen waqtigaasi, isaga oo Kispero orodyahan kale la yiraahdo 100 mitir ugu dambeeyay ku dhaafay. laakiinse waxa uu sheegay Maxamed Faarax in uu weli ka soo kabanayo kadib markii uu bishii hore maradoonkii magaalada London ka galay kaalinta saddexaad, taasi oo ahayd buuri tartan adag oo waqti badanna uu ka galay. waxaana uu gabagabadii halkaasi ka sheegay Maxamed Faarax in uu aad iyo aad u daalana. mahadsanid Bidaan Xaaji Daahir. ciyaar dhinaca kubadda ah oo loogu talagalay waqtiga Ramadaanta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. waxaa loogu talagalay waqtiga Ramadaanta ee barakaysan. haddaba ciyaartaas sida u dhacday, kooxihii wada ciyaaray iyo sida arrintu ay ahayd waxa inoo haya wariye Axmed Cawiil. halkani waa garoonka ciyaaraha ee Classic, inta badan oo lagu ciyaaro ciyaaraha kubadda cagta. sanadkii 12 bilood bishan oo kale ayay ka ciyaaraan banooniga. faa'iidooyin inay ka helaan ayay aaminsan yihiin dhallinyaradan, waayo ka horna inta aysan cuslaan ayay ahaayeen ehel banooni. xamaasad ayaa ka dhex jirta sababtoo ah koob ayaa yaalla, waxa ayna u habaysan yihiin naadiyo kuwaasi oo matalaya xarumo iyo shirkado magaalada ku yaalla. dharka ay ku ciyaarayaan labadan kooxood waxaa ku qoran Kah Electric iyo Euro
ciyaar xiisa leh ayaa dhex maraysa waxa ay guushu ay raacday kooxda kaax electrig oo ku badisay 4-1. intaas kadib waxaan la hadlay qaar ka mid a ciyaaryahanada. magacaygu waa cabdikhaaliq maxamed maxamuud. waxaan ciyaaraa kooxda ku ciyaaraysa carwada Euro. carwada Euro ciyaar ayay soo bandhigtay laakiin waa laga badiyay. soo waragta? wallahi ciyaartu waa kabi cadaan kulay labada qolo un baa guuleysanaysa. maadaama aan ciyaar fiican soo bandhignay oo de markasta aan rabnay inaan badino gaari laba nin kama wada qosliso waa guul daraysanay laakiin waxaan ku rajo weynaa ciyaaraha soo socda inaan guuleysano maadaama koobka aysan weli farka qodnayn. waa gartay dhalinyarada cuslaataad tihiin oo banoonigan loo dhigay inta badan waxaa la dhahaa ciyaaryahanadu waxay u sii xibsibtaan dee albiitar iyo bahalka iyo maxaad ugu soo noqoteen ciyaaraha? wallaahi qof kasta oo kubadda ciyaara kolley interest buu leeyahay. way jiraan dhalinyaro cuslaatay oo albiitara ka ah, sidoo kale way jiraan dhalinyaro cuslaatay oo ka kaaftoomay laakiin noo suuragelisay ama nasiib aan u yeelanay in aan ka qayb qaadano koobkan maadaama aan jaanis soo helnay bisha barakaysan ee Ramadaan. waa tahay waad mahadsan tahay Axmed Cawil oo inoo soo jeedinaya kubaddaasi ka dhacday magaalada Garowe. iminkana balaan eegno ciyaaraha Britain ee kuwa Premiershipka oo dhammaaday. haddaba sidee loogu kala tegey? waxa weeyaan Manchester City ayaa qaadatay biladaasi 100 dhibcood ayay gaadheen oo markaasi waxay noqotay record. ta kale la yaabkani waxa ay tahay iyaga iyo Manchester United oo talabaada in 19 dhibcood u dhaxeeyeen. tiimka kale ee saddexaad waxa uu noqday Tottenham, ka afraadna waa Liverpool. kuwa haddaba degay ee iyaguna aan ka soo noqonayn muddo baa laga yaabaa Swansea, Stoke City iyo West Bromwich Albion ayaa iyaguna hoos u degay. koobka FA Cup-ku waxa uu ka dhacay Sabtidii magaalada London. waxa uu dhex maray Chelsea iyo Manchester United. ciyaartu markii ay bilaabaysay dad fara badan baa aaminsanaa Chelsea oo baryahan aad moodo inay ka jiiftay Manchester United inay ka badin doonto, laakiin Chelsea ayaa waxay ku badisay 1 gool iyo eber penalty ama rigore. goolkaana waxa u dhaliyay Hazard. It's Eden Hazard now sends De Gea the wrong way and Eden Hazard gives Chelsea the lead in the FA Cup final. ciyaartii waxay ku dhamaatay 1-0. koobkiina waxaa qaatay tiimkaasi Chelsea. haddaba tababaraha tiimka Chelsea ee Conte baryahanba waxaa la isku hayay ma joogi doonaa ma la eri doonaa. waxaabay noqotay riwaayad, hase yeeshee isagu aad buu ugu dabaaldegay koobkaasi Chelsea ay qaatay. waxaa markaasi la weydiiyey isagu lafahaantiisu halka ugu dambayn doono. I can tell for sure this will be my last match in this season for sure. anigu waan hubaa wiil ciyaartan inay tahay tii ugu dambeysay. sida uu markaasi isagu u dhigayaa waxa aad moodaa inuu leeyahay waxay ku xidhan tahay Chelsea tallaabada ay iyadu qaadi doonto, laakiin buu yidhi aniga iyo kooxdaydu ciyaartii noogu dambeysay ee ilaa iyo hadda waxa ay tahay ciyaartan dhammaatay oo aad moodo in uu markaasi muujinayo sidii baryahaba la isku hayay in laga yaabo Conte in uu meesha ka tago. haddaba markiilaha Chelsea oo isagu nin bilyaneera oo Ruusha ayaa qudhisaa dhibaato ay soo food saartay. waxa ay tahay haddaba isaga oo la leeyahay fiisihii ka dhammaaday ayaa Britain ay markaasi u soo cusboonaysiin weyday. dowladda Ingiriiska ayaa la weydiiyey ama dowladda Britain arrintan waxa ay ka qabto, iyadoo dad fara badan ay leeyihiin waa mid siyaasadaysan oo aad moodo inay lug ku leedahay xiriirka aan wanaagsanayn ee imka u dhexeeya Britain iyo dalka Ruushka. Qaalib Baaruud ayaa inoo soo koobaya. afhayeenka ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegay inaan dowladdu ka hadli doonin sababta aan weli loo cusboonaysiin sharcigii dalku soo gelista ee taajirka Ruushaanka ah Ibrahimovic waa nin caan ka ah dalkan Britain, waana milkiilaha naadiga Chelsea oo ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska. hadda waxa uu ku guda jiraa nidaamka lagu cusbooneeyo sharciga dalku soo gelista kaasoo ka dhacay bishii hore. dad ku dhow Ibrahimovic ayaa u sheegay warbaahinta Reuters in dib u cusboonaysiinta fiisuhu ay qaadatay wakhti kii hore ka dheer. xiriirka London iyo Moscow hadda ma aha mid wanaagsan ilaa iyo intii la sumeeyey basaaskii hore ee Ruushka Sergei Skripal. mahadsanid Qaalib. haddaba aanu soo noqonee Mourinho oo aad moodo dhulka in la dhigay, tiimkiisi laga badiyey, rajana uu qabay inuu ka badin karo tiimkaasi Chelsea ayaa markaasi su'aal isagana la weydiiyey sida waxay u dhaceen. khaladaadku ma waxa mid taktikada ah oo khalad isaga uu sameeyey mise tiimka xoogga lahaa ama tiimkii u qalmayey ayaa guulaysay? waxa uu ku jawaabay. For me the image of the game is that
yidhi cayaartaasi waxay u dhacday iyada oo shabakadda un goolka uu noo geli waayey cayaar fiican ayay ciyaareen waxa uu yidhi taagtika ahaan cayaar fiican baan meesha ka muujinay laakiin tiimkii goolka helay ayaa ku guulaystay oo markaasi qaatay koobkii cabdirasaaq xaaji maxamed siraad aad ayuu u mahadsan yahay qodobada wararka ugu waaweyn haddaan dib ugu noqdo madaxweynaha talyaanigu waxa uu galabta qaabilay hogaamiyaasha laba xisbi oo ka soo horjeeda nidaamka xukunka talyaaniga si ay u soo dhisaan dowlad cusub oo wadaag ah kadib markii uu talyaanigu ku jiray ismariwaa siyaasadeed iyadoo xisbina aanu ku guulaysan aqlabiyad uu dowlad ku soo dhiso doorashadii dalkaas ka dhacday 2 bilood iyo bar waqti laga joogo hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa 5 xidigood iyo leegada waxay rajeynayaan in ay soo afjaraan 2 bilood iyo bar talyaanigu uu dowlad la'aan ahaa waa hagaag waxaa kaloo ka mid ah qodobada wararka ugu waaweyn xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo sheegay in Mareykanku ay cunaqabateyntii taariikhda ugu adkayd ku soo rogayaan Iiraan intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynayaa waxaa noo ballanaa 7 aroornimo ee Afrikada Bari hadda nabadgelyo